magaalooyin badan oo ay webiyada u kala qaybiyaan ee koonfurta Soomaaliya waxa ay leeyihiin buundooyin aanan wax dhismo ah iyo dayactirba lagu samayn toddobaadkii sano ee lasoo dhaafay. Magaalada Baardheere ee gobolka Gadow waxaa duntay halkii buundo ee magaalada dhex maraysay waxaana istaagay isu socodkii dadka iyo gaadiidka waxayna saameysay arrintaasi xataa ardaydii dugsiyada waxbarashada iyo iskuulada. Haddaba caqabada ka taagan dumista buundadaasi waxaa warbixintan ku eegeysa Saare Cabdi Axmed. markii ay burburtay dawladii dhexe ee dalka sanadkii 1991 horaanteedii waxaa dumay dhismo hoosaadyada iyo kaabiyaasha dadka ay adeegsan jireen ee wadooyinka iyo buundooyinka ay ka mid tahay kuwaasoo qayb ka ahaa kobaca dhaqaalaha ee bulshada. buundada magaalada Baardheere horaantii sanadkii 1977 waxaa dhistay dawladda Netherland markaasi oo lacag xoogan ay ku baxday. tan iyo waqtigaasi waxay ahayd halbowlaha isku xira magaalada labadeeda gedi ee webiga Jubba uu dhex maro, waxaana dadka gaadiidka iyo xooluhuba ay ahaayeen kuwo si siman u isticmaala ka hor inta aysan burbur xoogan uusan soo gaarin labadii bilood ee lasoo dhaafay. Cali Dhuux Maxamed Cali Maad waa gudoomiyihii ugu dambeeyay ee ay ku burburtay dawladii dhexe asagoo gudoomiye ka ah degmada Baardheere. wuxuu iiga waramay taariikhda ay soo martay buundadaasi. doomo qariban oo duqoobay ayaa yiilay leefoo buundada tani waxaa la dhisay 77 February ayaa la bilaabay. waxay socotay 2 months only. mana aha buundooyinka shubta ah ee waa buundooyin biraasha saaran ah aluminium ah oo weli u karayn daxal aan qabanayn ayay ahayd. aad bay u wanaagsanayd xilligii dawladdu ay jirtay. laba dhinac waxay ku leedahay bini-aadmigu meel u maro, kuwa gedigaa u gudbaayo oo galbeedka aadaya kuwa soo aadaya bariga ay maraan. dhexdana waxaa lahaa gaadiidka iyo xoolaha mari jiray. waxay lahayd barxad weyn oo dambe oo dhanka bariga ah. xooluhu hadday marayaan sida geela oo kale 25 ayaa lasoo deynaya, 25 baa lasoo deynaya. waxay lahayd isbeer aad u badan bay lahayd. mas-uuliyiinta magaalada ayaa ii sheegay in buundada ay u malaynayaan inay dumisay culayska iyo xadka tandhaafka ah ee gaadiidka ganacsiga ka keena gobolada intooda kale, gaar ahaana magaalada Muqdisho oo maraya buundada iyo iyadoo buundada xilligeeda uu ku dhawaaday waqtigii 50 sano ahayd oo la sheegay in haddii la gaaro ay u baahan doonto in dib loo dayactiro ama gebi ahaanba dhismahaasi la dumiyo. caqabadaha xilligan taaganna waxaa ka mid ah iyadoo aysan gaadiidka iska daaye dadka iyo dunyadaba mari karin buundada. sagxadda hoose ee buundada oo alwaaxyo ka samaysneed ayaa alwaaxyadii ay burbureen, waxaana soo taagtaagan meelaha qaarkood biro khatar ah sida uu leeyahay mar kale duqii hore ee degmada Baardheere Cali Dhuux Maxamed Cali Maad. sababo socto gobolka Gadow waa laba qaybood. qaybta galbeedka xoolaha jira aad bay u badan yihiin, weliba siiba geela. hadda waxay aadaan ilaa iyo meesha jilin ayay aadaan oo u gudbaan markii caws dhoog la'aan jirto. hadda boqolaal kun baa lagu soo aadan. dad bay kasoo hormarnayaan, lacag bay qaadanayaan, lacag bay bixinayaan. waxay u yeeranayaan nimanka oo maaragtay dad shaqaalaha ushayka lagu dhajinayaa. inta geelaasu gudbay kii baxdana dawr baa ku jabaysa, nasiib way baxaysaa. marka way kala xiran tahay. bini-aadmiga horta total musiba qofka weliga awal hore u yaqiinay buundooyinkan hore u yaqiinay yaa mari kara. ardadii dugsiyada labada dhinac bay ku kala ugudan yihiin. waxaan filayaa 6 months qof baa ka dhimanaya ardadii iyo ilmihii yaryaraa oo ka dhex baxaya jeexjeexii wix ay saareen. sidoo kale odayaasha dhaqanka ee deegaanka Baardheere ayaa ii sheegay inaysan jirin waqtigan wax gurmad ah oo ay u samaysay dawladda dhexe tan iyo marka laga reebo xubno ka mid ah golaha wasiirada dawladda Soomaaliya oo gobolka ka soo jeeda oo sheegay inay jiraan qorshayaal ay dawladda la damacsan tahay in dib loogu dayactiro buundada. wasiir ku-xigeenka batroolka iyo kheyraadka Maxamuud Cabdulqaadir Hilaal ayaa bartiisa Twitter-ka waxa uu dhawaantan soo dhigay waxyeelada ka muuqata buundada. si lamid ah waxa aan khadka telefoonka kula xiriiray dhinaca kale maamulka Jubbaland saraakiil ka mid ah oo ii suuroobin inaan helo si markaasi ay uga jawaabaan haddii ay jiraan waxqabad loo qoondeeyay in buundadaasi wax looga qabto. qurba joog iska abaabulay qaar ka mid ah gobolada dalkan Mareykanka ayaa u kici timay Baardheere si ay gacan uga geystaan qaylo dhaanta bulshada ka soo yeeraysay maalmihii la soo dhaafay.
maxamed cabdi caafi ayaa waxa uu ka mid yahay dhalinyarada isxilqaanka ku tegay magaalada baardheere kana tegay Mareykanka. khadka telefoonka ayuuna iigu waramay. wallahi waxaan ku tilmaami karaa adigu boqolkiiba 70 way burbursan tahay. alwaaxda lagu talagalay in ruuxa la saarto jingala baa lagu garaaca fustooyin la fidiyo bisha laga saaraa maamad irufaysan oo dadka dhanka ku xusaysa gawaarida fudfud iyo dadka shacabka luweenaya maaha gawaarida waaweyn iyo qolayska nabada awoodi karaan oo waa loo diiday mana ay maraan marka waa khatar aad iyo aad u ballaaran oo soo wajahay bulshada ku nool dalka 12 sano oo lasoo dhaafay maamulo isku nooca kama shaqeynay agabka iyo bundadan qalabka u baahan tahay wax wadanka gudihiisa yaala waxa dhaqanka laga saadiyo hadda waxaan diyaarinaynay sidii loo dhisi lahaa xeerarkan waxbanaan maamulka oo shacabka hoos timaada oo ayagu u istaagan wax ka qabadka iyo magaranaysa arrimaha bangada dadku waxaan ku sameynay baaritaan balna wax ka ogaana inay yihiin dad u diyaarsan ay wax qabsan karaan. magaalada baardheere waxa ay ka mid tahay magaalooyinka koonfurta Soomaaliya ee leh kheyraadka wax soo saarka xagga beeraha maadaama webigu uu maro waxaana dhowr iyo 20 sano la soo dhaafay ee kamid ahayd gobolada dalka koonfurta magaalooyinka waaweyn ee ku yaala ee hardan kasta oo ka dhaca gobolka ay ku yaalaan si weyn ay u saameeysay.